الرحيم sida la socotaan waxaa weerar gardarro ah oo lagu qaaday xaruntii ay deganaayeen ama hoteelkii ay deganaayeen labadii madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo rag kale oo mas'uuliin oo ka tirsan midowga musharaxiinta waa caadadii ina farmaajo madaxweynaha xilkiisa uu dhamaaday oo saddex dhexe dadka ku miri jiray weerarka gaadmada ah waa dhaqankii uu lahaa mid cusub maaha isku dayga uu doonay inuu ku qaarijiyo madaxdaas iyo inuu ku qabsado xaruntii lagu ballamay mudaharaadka inuu ka dhaco waan cambaaraynayna waa fal aad u fool xun dhaqan xun akhlaaq xun diin xun wadaniyad xun wax kasta oo xumaana uu leeyahay oo ku sifaysan yahay waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqno haddii aad beri ku soo bixi lahaydeen 10,000 inaad 20,000 ku soo baxdaan haddaad 20 ku soo bixi lahaydeen inaad 40 ku soo baxdaan haddaad 50 ku soo bixi lahaydeen inaad 100 ku soo baxdaan abaabulkeedaan u taagannahay waa in ku horkacaynaa waxaan rabnaa inaan uga jawaabno ficilkaas waxshinimada leh oo fulinimada leh oo akhlaaq xumada leh oo wadaniyad la'aanta ah inaan uga jawaabno dareenaan ku cabirayno inaan ka xunnahay cid kasta waxaan ugu baaqaynaa inay gurigeeda ka soo dhaqaaqdo oo halka lagu ballamay mudaharaadka beri loo ballamay daljiga dahsoon ilaa 2 kiiloomitir 4 lambar 4 dadka ay isugu yimaadaan soo daataan waa ogtiin hadda ka hor inqilaab taangiyo wata lagu istaajiyo shacab ay istaajiyeen wadanka Turkiga waa la socotaan awoodda waa idinka iskale cidnaha uga baqinina annagana waan ku hogaaminaynaa ina farmaajo wuxuu rabay in laga jawaabo weerarkaas oo magaalada dagaal ka dhaco oo ay colaad ka dhacdo oo ay rabshado ka dhacdo taasna annaga kama yeelayna waxaan ku jawaabaynaa mudaharaad isku soo bax iyo awoodda shacabka inaan tusno ayadaa wax kasta ka xoog badan ayadaa wax kasta ka fiican ayadaa wax kasta ka weyn marka waxaan rabnaa shacabka ku dhaqan Muqdisho inay muujiyaan inay ka xun yihiin falkaas inay dareenkooda mudaharaad ku muujiyaan annagana abaabulkeeda hadda aan u taagannahay oo aan ku jirno kuwa dibadda jira ka baxsan magaalada Muqdisho ay cabiraan qaasatan mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada inay soo saaraan statementiyo ay ku cadeynayaan falkaas inay ka xun yihiin shacabka qurbaha joogay jaaliyaha dibadda sidoo kale ayagana inay muujiyaan waa inaan dhaqankan si wada jira uga hortagnaa waa dad badan oo Soomaaliyeed yaa maalinba maalin ka dambaysa baranaya ninka xilkiisa dhamaaday waxaan ugu baaqayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed odawaa nin dhalinyaraha tahay mustaqbal leh nin dhalinyaraha mustaqbal ha tahay ha ku cayaarin mustaqbalkaada sharaftaada iyo karaamadaada ku cayaarin iska cazil xilka haddii aadan diidi karin amarka ninka muddadiisa oo dhamaaday mas'uuliyadda waa la qaybsanaysaa sidoo kale taliyaha ciidanka gorgore meesha weeraray iyo taliyaasha kale ee ciidanka howshaas loo diray iska cazila haddaa sharaf iyo karaamo leedihiin waxaan ugu baaqayaa ciidanka xoogga dalka intiisa kale iyo kuwa nabad sugidda iyo kuwa maaragtay taliska booliska inay diidaan amarka oo bixinayo ninka muddadiisa ay dhamaatay ay xilalka iska cazilaan oo ay shacabkooda ilaaliyaan ay qayb ka noqdaan ugu baaqayaa taariikhda in xusi doonta nidaam dhacay oo galbaday oo waqtigiisii dhamaaday waaye waa leen kula xisaabtamaya haddaa sharaf iyo karaamo yeelataan haddii aad dadkiini iyo difaacdaan iyo xurmada dadkiini iyo deegaankiinana waa linku karaamin doonaa haddii aad ku sii socotaan ficilkaasna waxaa noqon doontaan dad gumoobay oo nacasnimo taariikhda ku galaa noqon doontaan iska cazila diida amarka oo inisiinaya ninka aan wax sharciyada iyo wax dadnimo iyo wax akhlaaqa aan haysanin ee ku jira filla Soomaaliya ee sharci darrada ku jooga iska cazila diida amarkiisa waa ma santiin. Wassalaamu calaykum.